wardegdega madaxweynaha waqtigiisu uu dhamaaday ee Soomaaliya oo maanta ka qayb galay isla markaana furay kalfadhiga sadeedaad ee baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday ayaa khudbad dheer oo ka horjeediyay waxa uu kaga hadlay dhinacyo badan oo ay ugu muhiimsan tahay xaaladda cakiran ee siyaasadeed ee dalka iyo sida markaasi looga gudbi karo isaga oo qayb ka mid ah khudbadiisa kaga hadlay faragelinta Israel ee Soomaaliya waxaana uu sheegay in xoog iyo xeelad midka ay helaanba isla markaana ay awoodaan ay isaga difaaci doonaan kana hortagi doonaan faragelinta Israel ay ku sameysay gobolada waqooyi ee Soomaaliya sida uu markaasi sheegay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud waxaan kula wadaagi doonaa qaybta ugu muhiimsaneed ee Israel kaga hadlayay madaxweyne Xasan khudbadiisana ku jirtay soo dhawow marka hore muuqaalka like sar aragtidaada qaybta faalada ee commentiga ku dhibo hagaaga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta furay kalfadhiga sadeedaad ee baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya ayaa khudbad dheer oo halkaasi ka jeediyay waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya si gaar ah waxa uu madaxweynaha carabka uga adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la gaaro heshiis siyaasadeed oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo wax ka beddelka dastuurka madaxweynaha ayaa intuu khudbadiisa uu ku jiray waxa uu ka hadlay faragelinta Israel ee Soomaaliya gaar ahaan gobolada waqooyi waxaana uu madaxweynuhu sheegay si cadna markaasi uu tilmaamay khudbadiisa in xoog iyo xeeladba ay isaga difaaci doonaan faragelinta duulaanka Israel iyaga oo kaashanaya saaxiibadooda caalamiga wadda madaxweynaha Israel uu kaga hadlayna waxa ay kamid tahay hadaladiisii sida tan duulaanka Israel ee dalkeena si cad ayaan u diidnay maanaan qarin fagaarayaasha adduunka oo dhammaan la taaganahay dadkeenana waa u sheegnay Israel fitnooyinka jira ee adduunka ka mid tahay nasiibkeenu wuxuu ahaa fitnadaasi waa naga fogeyd nimankii fitnadii inta soo qaadeen hadda ay noo keeneen suurtagal maaha marka colaadda iyo dhibaatada maxaan ku raadayay qarni ku dhowaadka ka jirta bariga dhexe in geeska Afrika la keenahay si sahlan maaha waxay doonto dadka u sheegto temporary way muddo kooban way waa ka guurina baraan ka tagina waxay doonto ha dhacdo meel ay tagtay weligeed kama tagin Golan Heights Suuriya 1967 ayay tagtay weli waa joogtaa kama ay tagin Sinai sidaas oo kale way qabsatay xoogaa looga saaray kama ay tagin dabeecadda Israa'iil iyo taariikhda akhriya meeshay tagto kama tagto meeshaas inayna deginaan rabnaa annaga waxaan ka shaqaynaynaa xoog iyo xeelad iyo diblomaasiyad iyo iskaashi caalami ah inta aan leenahay oo dhan waxaan u isticmaalaynaa Israa'iil meeshaas inaanay degin wax dan ah oo ummadda Soomaaliyeed ugu jira ma jiraan wax dan ah oo deegaankaasi ugu jira ma jiraan wax dan ah oo gobolkan geeska Afrika ugu jira ma jiraan iyo badda cadmeed iyo badda cas intii ka dhaxlaba sidaas daraadeed mar walba Soomaaliya cod dheer iyo cod gaabanba way ku leedahay Israa'iil ha naga baxdo